uma suurto gelin waxaanay ahayd bilowgii musiibo dhimasho badan dhalisay. rakaabka diyaaraddu waxa uu ahaa kooxda Manchester United, gaar ahaan fasalkii lagu naanaysi jiray Busby Babes. waxaa sidoo kale ku jiray xoogaa taageerayaal ah iyo saxafiyiin. 20 ka mid ah 44 qof oo saarnaa diyaaradda ayaa geeriyooday. saacadda Munich waxay ahayd 12:15 daqiiqo. taariikhduna waa 6 February 1958. qaar ka mid ah dhaawacyada oo darnaa ayaa loo qaaday isbitaalka Regis de Ezer Hospital oo ku yaalla magaalada Munich, halkaas oo 3 qof ay dhaawac ahaan ugu dhinteen, taas oo geerida guud ka dhigtay 23 ruux, halka ay 21 qofna badbaadeen. kooxda Manchester ayaa ka soo laabatay kulan ka tirsanaa European Cup oo ay ku soo ciyaareen magaalada Belgrade ee Yugoslavia, waxaana ay la soo ciyaareen kooxda Red Star Belgrade ciyaar semifinal ahayd. diyaaradda ayaa ku sii hakatay Munich si ay shidaal uga qaadato, laakiin duulimaadkii Munich ilaa iyo Manchester ayaan suurtagelin. cimilada oo xumayd darteed iyo baraf badan oo dhacaya awgii, waxaa duuliyaashii diyaaradda James Tyne iyo Kenneth Reidman ay go'aansadeen inay diyaaradda ku celiyaan Munich. 2 jeer oo ay diyaaraddu isku dayday inay degto uma suurtagelin. kadib ayay markii saddexaad diyaaraddu garabkeeda bidix ku dhuftay runwayga garoonka Munich, taasoo keentay inay burburto, dabna uu ka kaco. 8 ciyaartooy oo Manchester United ka tirsanaa ayaa ku dhintay musiibadaas, oo uu ku jiray goolhaye Dagan Edwards oo 15 cisho kadib isbitaal ku qurbaxay. 3 xubnood oo maamulka Manchester United ka tirsanaa oo uu ku jiray xogayihii kooxda Walter Krigmer, 8 saxafi, 1 taageere iyo ninkii duulimaadka diyaaradda madaxda ka ahaa iyo xubno kale ayaa ku dhintay shilkaas. meedadkooda waxaa la geeyey England si halkaas loogu aaso. Johnny Perry iyo Jack Blanchflower oo ka mid ahaa 9 xidig oo ka badbaaday musiibada ayaa diiday inay dib dambe banooni u ciyaaraan. tababari Matt Babsey oo shilka diyaaradeed uu dhaawac ka soo gaaray, wakhti badan kuma qaadan inuu dib u dhiso kooxda Manchester United oo hadda ka mid ah kooxaha dunida ugu caansan. ciyaaraha FM 103 MHz.